magaalada muqdishaynu joognaa moogtiin magaalada muqdishaynu joognaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta waa asbuucii kelimadii asbuuca duqa magaalada muqdisho aad baa u mahadsantihiin dadka fiirsanaya youtube-ka ka fiirsanaya waxaan ugu talagalnay dadka inaan wacyigooda aan kordhino waxna la socodsiino magaalada meesha markasta marayso wixii ku cusub waxaan ugu cusub wiigan waxaan ugu cusub dhibaato soo gaartay magaalada oo dab kacay oo hanti badan burburiyay yes hantidii waa burburtay dabkiina dhibaato gaarsiisay laakiin asbaabaha maxaa keenay weeye asbaabaha keenay waxaan rabnaa inaan marka aan ayna dib dambe u dhicin waxaa la isku hayaa batrool banaankii lagu hayo oo fuustooyin ku jira oxygen wax lagu alxamahayo oo baabuur iyo lagu alxamahayo rasaas oo dad ay iska wataan oo rasaastaas haday dhacdo ay dad ku dhiman karaan ama dabka kicin karta waxyaabo badan marka waxaasoo dhan waxaa wax khatar keenaya marka waxaan rabnaa inay ummaddu la socoto waxa dhibaatada u keenaya hantidoodana baabi'in doona markaad isu keentid batrool iyo rasaas oo freelance uu ku socdo oo qof xabadda mas'uuliyadda ka saaran aan garanaynin wuxuu raba xabadda uu raba ridihaya iyo oxygen dab ka kacahayo oo lagu samaynayo maaragtay baabuur lagu samaynayo oo oxygenkii lagu samaynayo sharaaradaasi marka hadday batroolka gaarto maxaa dhacaya xabad la riday hadday soo gaarto on loogu talagelin hadday soo gaarto maxaa dhacay wixii dhacay maanta shalay wixii dhacay baa dhacahaya marka waxaan leenahay jidadka waa in hadda waxaa la sameeyey petrol stations baa la sameeyey waa inaan ka maaranaa batroolka lagu gadahayo jidadka geesaheeda in lagu gadahayo marka ugu horreysa jidadka la dhisa way duminaysaa sababtoo batroolka hadduu laamiga ku dhaco waxaa baaba'ay laamigu baabi'inahayaa laamigu dhalaalinahayaa therefore waxaan soo saaraynaa mardha waxaan soo saaraynaa jidadka batroolka lagu gadahayo oo dhan ee haweenku gadahayaan inaan lagu gadi karin meel kale hala aadan laakiin jidadka waaweyn oo dhan inaan batrool lagu gadi karin in la kala dhowro marka wax dab iyo batroolna in la kala dhowro oon aan isku meel la isugu keenin meel baabuur lagu alxamahayo iyo inaan batrool meel la isugu keenin taasna waa shuruuc dambe oon soo rogayno oon tillaabooyin ka qaadi doonno we sina wixii shalay dhacay ayna u dhicin taasi waa marka waa dhibaatadii soo gaartay guulaha magaalada wiigan soo gaaray waxaa ka mid ah annagoo rabno wiigan gudihiisa in aan bilowno national ID inaan bilowno birth certificate inaan bilowno inaan diyaarinay wax kasta oo biometric ah hadda ka bacdi Soomaalidu yaa Soomaali yaanse Soomaali ahayn yaa muwaadin yaanse muwaadin ahayn yaa argagixisa ayaanse argagixisa ahayn yaa wax wanaagsan wada yaase xumaan wada in la ogaado ayaan rabnaa taasaan wiiga soo socdaan soo saari doonaa hadduu ilaahay yiraaho qof kastoo Soomaali ah mucaamalo gelahaya ama mucaamalo private ha noqoto ama mucaamalo dawli ha noqoto waxaa ku qasban inuu samaysto national ID inuu sameeyo sim card ma gadan karaysid shirkadahana waan uga digaynaa kulley shuruucdaa soo baxaysa markii la furo sim card ma gadan karaysid guri ma kiraysan karaysid guri ma gadan karaysid dekada wax kale ma soo degi karaysid baabuur ma gadan karaysid license ma qaadan karaysid passport ma qaadan karaysid waxaasoo dhan inaad Soomaali taa ka horey national ID inaad waddankan xuquuq ku leedahay oo Soomaali tahay in kale waa in la qaataa marka national ID dad baa sahal u qaadan doona waqti ayaan qaban doonaa markii waqtigaas uu dhamaadana qofka national ID haysan waxaan u qaadanaynaa qof argagixiso ah oo diidan in uu is sheego ama in la tilmaansado diidan baan u qaadanaynaa marka waa in la qaataa maalinta la bilaabo la furo waa inuu qof kasta ku dadaalaa sidoo national ID u qaadan lahaa arrintaasna waa fududaynaynaa intaan fududayn karayno ayaan fududaynaynaa taasna waxaa weeye guul u soo hoyatay magaalada muqdisho mar labaad u soo hoyatay weeye maxaa kaloo noo dheer oo magaalada u soo hoyday magaalada horumarkii baa ka socda jidadkii baa la dhisahayaa quruxdii jidadkaa soo noqotay quruxdii jidadka marka laami la dhisay quruxda keligiis ma noqonayso quruxda dadkaa ka qayb qaadanaya markay naaguhu biyaha kusoo shubahayaan laamigii markii shaaha la kariyey gufarkiisa markii maqaayadda cuntadii laga soo saaray lagu soo shubo laamiga waxaasoo dhan waxaa weeye waa waxyaabaha bilicda wax u dhimahaya mana u dul qaadanayno waxaa kaloo bilicda wax u dhimahaya geedahan shabaqa ah ee laga sameeyey jidadka meeshii marshabeedigii laga sameeyey ee lagu gadahayo ama sigaar lagu gadahayo ama lagu gadahayo batrool lagu gadahayo kuwaasoo dhanna waxaan leenahay ka waantooba waxaa kaloo bilicda wax u dhimahaya ciidaha lagu soo daadinahayo maaragtay ayaa wax u dhimahaya marka taasna magaalada quruxdeedii baa laga shaqaynayaa waxaan rabnaa inaan wanaageedii dadka dhan ay isla qaataan magaaladoodii inay ilaaliyaan ay ka ilaaliyaan xumaanta sida adduunka oo dhan dadka muwaadiniinta oo dhan ay magaalooyinkooda u jecel yihiin maxaa kale jidadkeennu waxay leeyihiin magacyo aan micno samaynaynin waxaan rabnaa mar dhow inaan jidadka magacyo micno samaynaya u yeelnay jidadkii dhammaa in la magacyo loo bixiyaan rabnaa jidadkii number in loo bixiyaan rabnaa
jidadkii marka macno magac sameey wadnaha muxuu sameynaa hadda macnaha uu sameynaa wadnaha soddonka macnuhu sameynaa waa maxay marka waxaan rabnaa macno qiimo ugu fadhiyo dadka Soomaaliyeed inaan jidadkii magacyada macnaha aan lahayn inaan magacyo macno la aan u yeelno ayaan rabnaa taasna iyaduna waan ugu soo socotaa hadduu Ilaahay yiraaho waxaan rabnaa dadku in ay ka qayb qaataan marka laba arrinba dhismaha wadanka inay ka qayb qaataan in ay amniga wadankana ka qayb qaataan waad aragteen hadda amniga intaan helnay hadduu Ilaahay noo sii badiyo amniga intaan helnay waad aragteen sida wadankii uu isu bedelayo noloshii sidii isu bedelayso qof kasta way taabanaysaa noloshii isbedelka kan ugu faqrisan ee shaqada haysan way taabanaysaa sababtoo ah shaxaadkii wax dad shaxaad dhiibi karuu helayaa dad shaah ka bixin karuu helaya dad qada ka bixin karuu helaya dad wax u tari karuu helaya marka waxa waa amnigeena yaanan compromise gelin amnigeena qabyaalad dambe yaanan amnigeena qabyaalad dambe iyo eex dambe yaanan helin dadka shabaabka ee la qabanayaan laga daba imaan waxaan leenahay hal laga haro dadka shabaabka ee la qabto hebel sheekh buu ahaa walaalkii waa ana aqaanay xildhibaan baan u ahay wasiir baan u ahay khuraafaadkaas oo dhan yaan laga daba tagay qofka shabaabka ah hal baarto hay'adaha amniga ha baartaan markay ka soo quustaan oo ninkan dambi male ayaga soo deynaya laakiin qofkiiba hadii laga daba tago la dhaho wuxuu ahaa nin dilaa ah oo miinooyinka dhigayo dadka dilahayay hadii la dhaho reer hebel way hadda waxaan hubaa kuwa aan raadinayno ku daba joogno markaan soo qabanno oo magaaladan aan ognahay meelaha ay ka howlgalaan iyo dadkay dileen aan ognahay markaan soo qabanno waxaad arki doontiin dad dhihi doona anaa wiilkan adeer u ah weligiis ma gelin waxaas dambi ma gelin waxaasna ha laga haro sababtoo amnigaaga ayuu dhibaato u keenayaa amniga caa'iladaadu dhibaato u keenayaa dadkani dad naxamaaha dad qabiil iyo aaminsan maaha dad wadaniyeed aaminsan maaha dad dhiig ku faraxasho weey oo dhiigii u dhadhamaa inay wax dilaan ilmo yaryar bay soo adeejinahayaan 10 jir 11 jir ay leeyihiin madax jabis baa tahay canugaana wuxuu ku enjoy gareynayaa inuu xabad qofka madaxa uga dhufto qofkaas safar gareyntiisa maskaxdiisa duuday ayuu ku raaxaysanayo waa majnuun uu waashay adigana waxaad rabtaa barrito inaad difaacdid oo tiraahid ma aragtay ma aha sidaan ma waxaan rajaynayaa marka in ay arintaas oo dhan magaaladani in ay quruxdeedii iyo wanaageedii wadajirkeedii ay soo noqoto ayaan rajaynayaa wiiga dambe ayaan haddana kelimad ka dhiiban doonaa aad baad u mahadsantihiin